waxa ugu weyn ee ilaahay dhulkan noo keenan de waa inaan safiiro wada noqdana ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu malaa'igtiisa ugu faanay in dhulka uu geyn doono dad safiiro ah dabcan markaas ay malaa'igta dhahaysay ma dadku macna ku dulmiya dad macna ku dhulka fasahaadiya miya dhulka geysanaysa ma yiri waxaadan ogeynaa ogahay dabcan wuxuu ilaahay uu ogaa waxay tahay in fariin anaga nagu weyn gudaheena ku jirto marka waxyaabo fariintaas noo diidaa inaan banaanka soo saarnaa waxay tahay de cabsi anina cabsida dabcan dadka inta badan fear English lagu dhahaa waxa la false evidence abir English noocaas uu noqdaa marka kala qaadayo laakiin Soomaali waxaan arkay dabcan book aan ka aqriyay waxay ahayd cabsidu waa caado beeninaysa sareynta ibnaadinimo waa caado beeninaysa sareynta ibnaadinimo marka adiga fikir sidee ku ogolaanaysa bini'aadanimadaada qof beeninaayo dabcan hadeerta ma iga ogolaanaysa daan ku dhaw bini'aadan ma tihid waxa tahay miga aqbalaysa macna marka haddana cabsidii waa aqbalaysa oo isu dhiibaysa dabcan waa laba kala duwan oo aragtidaada kala saara marka waxaan dhihi lahaa talahan cabsidu waa xayndaab annaga aan isgelinay waa qiyaali aan annaga isu dhiibnay aan dhaanay deena maamul oo meeshaas in geyso marka waa inaan go'aan qaadan kartaa oo dhihi kartaa waa inaan noqdaa de qof caqabadaha wajihi kara wax walba caadi iimaana aqbali kara si aan biri u noqdo qof raaxaysanaya waa inaan dhihi kartaa oo cabsida iyo qiyaaliga iyo maalayacniga iska saarta dabcan waxyaabaha cabsida lagu yareyn karo waxa kamid ah markii stage lagu waczuumo number 1 inta aadan stage soo fuul horta waa inaad maxay wax balan garaysaa oo aad isu diyaarisaa adiga inaad fagaara ka hadlayso markii stage aad timaado dadku waxay sameeyaan inta badan waxay dareemaan horta cabsi badan calooshiga gudgudoomayso dhiid badan ay imaanayo qofkii aad u jareynaya marka waxa qasab ah si aad waxa soo u dareemin inta stage taagan horta neef qaado jawi degan ha is dareensiinin email degdeg ugu jiro aad cararayso tartiib stage marka kadib waxa uu u leedahay qofka inaad si toos ula sheekaysato waxyaabaha secretka oo dadka fagaarka hadlayaasha caalamka ay sameeyaan waxa kamid ah qof markuu stage soo fuulo intuusan hadalka bilaabin wuxuu isku dayaa dadka inuu la hadlo السلام عليكم سلامتي ku celcelina dadka qaar oo saaxiibana ay sameeyaan salaamti ku celcelina qof markuu عليكم السلام xoog badan uu maqlo wuxuu dareemaa in la hadlaayo la sheeko in la hadlaayo dareemaa aad u degsanaya waxa kale oo sameyn kartaa erey lagu qoslaa sameyn kartaa oo commandia de waa cabsanayo kal marka dhacdo dadku way wada naxayaan way kugu qoslayaan Soomaalidu waxyaabo aad u jecel yihiin way wada qoslayaan marka soo deg marka mikrofoonka qabsanaysa normal macna wax caadi ah dareemaysa marka waxyaabo cabsida lagu xalin karo way badan yihiin bogan akhriya marka wuxuu leeyahay hadii aad inaad iska yareyso claustrophobia ama cabsida fagaara ka hadalka waxa qasab ku aan saddex samayso marka number 1 horta waa inuu jiraa go'aan hadii aanu go'aan jirin maxay ahayd wax ku suura galayo ilaa oo ma jiro wax walba maanta arkayso in leerkan maxay ahayd maanta uu dunida dhan ay wada isticmaasho waxa uu wandey go'aan ku qaatay Thomas Edison in maxay ahayd la isticmaalo mobile qof go'aan ku qaatay in maxay ahayd camera aan maanta muuqaal ku dubno qof go'aan ku qaatay marka adiga oo bini aadan ah waxa go'aan ku qaadan laadahay ceeb kuugu ahba ina go'aan ku qaadato in cabsida iska celiso marka waa ina number 1 go'aan ku qaadataa oo aad dhahdaa waa ina cabsida iska saaraa number 2 waa ina galaas xaadirtaa oo fagaara ka hadal qaadataa dabcan maanta xarun badan magaalada ku yaalo ka shaqeeyo xirfadaha fagaara ka hadalka bixiya oo waliba skillful bixiya macna oo xirfad dhameystiran ah oo waqti badan ku bixiya oo saacada marka ina xarumahaas raadisa ka qayb gashaa oo aad dhihi kartaa xirfadaas u baahanahay bara oo lacag walba kaaga baxaysa oo qoorta halka ceeb aan wada qabnaa waxay tahay annaga Soomaaliya hadaan nahay caalamka qaar bay ka jirto waxa u baahannahay qiimahooda ma qoorno dabcan dhar hadii maanta la dhaho $30 waa u qooreyna laakiin wax ka qiimo badan oo nolosheena horumarin kara uma qoorno oo waxyaabaha eeda aan ku leenahay marka xirfadda u baahan tahay hadii qiimo walba lagu dhaho waa ina u qoori kartaa sababta xirfaddu bariig ku anfici doonta oo noloshaada bedeli doonta nolol kumanaan kale bedeli doonta marka mid u dambaysa waxay tahay ina maxay ahayd ku celcelin badan samayso practice waxyaabaha faniga aan xasuusto waxa kamid ah inta aan ku jiray course public speaking aan qaadanay oo tababarayaasha mid kamid ah uu dhahay xaafadda marka tagto oo qolkaaga aad xaadirto
barkimaha iyo macna alaabta qolkaaga ku jirto in la hadli kartaa dad u soo qaadataa macna heer waxay ku gaarsiinaysaa in macna practical ah ku sameeyso meeshaas marka dadkaas ala hadasho waxoogaa cabsidii ka yaraanaysaa galaas 40 qof ala hadlaysa cabsidii way yaraanaysaa marka stage inaad timaada waxba kaama xigto oo wala hadli kartaa alxamdulillah maanta anigu waa kaasa oo meel badan ka hadli karo oo ilaahay ii suura galiyay awoodeeda ka soo isku dagay ka soo marka waxaan dhihi lahaa saddexda sameeya number 1 go'aanka idinka imaado number 2 galaas xaadira number 3 practice joogta sameeya wax walba la idin dhaho waliba ma hadee wax idinka aan keensanaysan wax walba tababaraha idin dhaho oo wanaagiina iyo guushina ku jira sameeyaan dhihi lahaa dhalinyarada wili ay ku dambeeysa cabsi ka hadalka waalidiintana aadan ugu dardaarmi lahaa inay bartaan sababta ah marka u baahan tahay wiilkaaga inaad la hadasho waa ana areeyo awood leh kula hadli kartaa marka dhahdo waa qaldan tahay waa dib daran tahay wax la mid ah wiilkaagu isceel kaambinaayo oo isxiraaya marka waxa qasab ku waa adigoon wiilkaaga iska macna si aadan dhaawac u gaarsiinin inaad kula hadli karto ereyo saameyn leh inaad qalbigiisa hanan karto inaad dareensiin karto inaad wali jeceshahay laakiin waxaas uu sameeynayo aadan jeclayn oo aad u baahan tahay inuu iska jaro marka fagaarka hadalku waxyaaba aad ugu bogaadinayo waxa taa marka waxay ku baranayaan wiiska ay ku saameyn karaan qalbiga ilmahooda marka ayagana aad ugu bogaadin lahaa in ay bartaan fagaarka hadalka ardayda dabcan waa meesha ugu badan jaamacadaha bundooyina looga jartaa maanta waxyaaba ugu badan aan arkay aniga qaar ta koorso siiway jiraan ganacsatada sidoo kale waa way qaataan dabcan hadda waxa noo dhiman waxa waaye waalidiin